madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kormeerkan uu ku tagay wasaaradda horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku kurgelayay habsami u socodka howlaha shaqo ee wasaaradani qaranka mas'uulka uga tahay. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa goob u galay qaybaha kala duwan ee ay wasaaradani ka kooban tahay, wuxuuna warbixino kala duwan ka dhageystay madaxda gacanta ku haya maamulka wasaaradda maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland. inta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan xarunta kula yeeshay maamulka sare ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland kaasoo lagu lafaguray horumarinta dhaqaalaha iyo kobcinta adeegyada ay wasaaradani u hayso bulshada reer Soomaaliland. wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa sharaxay hawlgallada u hirgelay wasaarad ahaan iyo qorshaha ay damacsan yihiin mustaqbalka in ay ku horumariyaan adeegyada ay wasaaradani qabato. mudane madaxweyne muddadii aanu joognay waxaan aad iyo aad xoog u saarnay kobcinta dakhliga qaranka. cashuuraha barigu aad ayuu u hooseeyay, imankana korkac ayuu wadaa, waana sii wadaynaa. sanadba sanadka ka dambeeyay ayuu kolba kor ku kacay. mudane madaxweyne waad ogeed waxaan diyaarin siyaasadii miisaaniyadda, waxaan soo saarno kale miisaaniyaddii qaranka ee 2018 nidaamka shaqaalaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaan isbedel isagana ku sameynay oo maalin walba ilaa imankana socda. waanu wadaynaa insha Allah bismillaahi kariim. waxaan dabagal iyo dib u eegis badan ku sameynay laamaha dakhliga uu ka kooban yahay ee cashuuraha bariga iyo kastamada. mudane madaxweyne waxa aanu sameynay markii koobaad oo si fiican u midaynay labada buug ee buugga tacriifada ay ku shaqeeyaan cashuuraha barigu iyo buugga tacriifada ee ay ku shaqeeyaan kastamadu. imaka waxaan noo qorshaysan oo gacanta aan ku hayna inaan diyaarino siyaasadda macroeconomic policy inaan diyaarino, sidoo kale inaan diyaarino siyaasadda maaliyadda ee fiscal policy ah. waxa kale oo aan soo saarnay national tax policy strategy ama qorshaha cashuurta ee qaranku uu leeyahay oo kala xadeynaya cashuurta dawladda dhexe iyo cashuurta dawladaha hoose. mudane madaxweyne waxaan doonaynaa sidoo kale mudane madaxweyne aan hirgelino barnaamijka mishiinada cashuuraha lagu ururiyo. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dul istaagay ujeedada uu kormeerkiisani xambaarsan yahay, isagoo iftiimiyay kaalinta weyn ee maaliyaddu ay kaga jirto kobaca ku yimi qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hawlgallada horyaalla ee looga fadhiyo inay bulshadan u qabtaan. waxaan maanta idinku inaynu isla eegno xaaladda aynu ku sugannahay iyo mas'uuliyadda wadarahanada ee saaran haddaynu nahay dawladdii ama xukuumaddii. waxaynu ognahay maanta dadkeena Soomaaliland oo inagayna sugaya intayna in lamid ah raadadka ay ku reebeen abaarihii dheeraaday ee 10 sano socday. dadkaasi waxay sugayaan ilaahay ka soo dawladda. dawladdeena ilaahay ka soo waxay wax ka sugaysaa dadkaas inay noolaadaan oo wasaaradda maaliyadda. marka dadkeena halkan fadhiya xilka saaranay ummadaas oo dhan sugaysa. dad badan oo in badan soo shaqeeyay oo waayaragnimadii leh oo taladii haya iyo dad aqoontii leh oo yar oo firfircoon waa isku jirtaa. labadaas markay iskaashadaana waxaynu gaari karnaa. marka waxaa laga rabaa badda wuxuu soo saarayo caqli keenaya, bariga wuxuu qodnaya, beeriga wuxuu qabanaya, baraya shaqadan la yiraahdo service adduunku ka shaqeysta baraya ee dalalkan aan jaalkanahay dekada wuxuu gudbinaya isu wada geeyo. maaliyadda waxa laga rabaa dadka baahan wacdi suuya horta halka aynu ka soo duulo xilka aynu ka soo duulina. dawladdiina idinkeed ka sugaysa oo dalku cadaana waa haysataa. waxa la idinka fadhiyaa 3 sano ka bacdi 5 years later 2 years later halkeebinu joogana maanta ka rabaa. mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa yiri saaka afartii gacan yaray tii Kismaayo, tii Garowe, tii Baydhabo, tii Jawhar oo Samareeb. saaka qoraalba oo saxan ay gaalada leeyihiin Soomaaliland waxa lama siin karo. mid ku jirta laba laba gabaraya. waxaa soo dagaal waxaan kaga baxaynaa
inagoo ilaahay maskaxduna siiyey iyo awooddeena ka faa'iidaysana madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi kormeerkan uu ku tegey wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa la xidhiidhaa horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha bulshada somalilan iyo sidii xukuumaddiisu ay u hirgelin lahayd mashaariic horumarineed oo ay ku manaafacaadsadaan shacbiga reer somalilan. ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan xarunta wasaaradda maaliyadda somalilan.